السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الملك سالتو كان كسو دوادا برنامجكي سبورتي هذا كلا سعوديان بارتنا يوتيوب كي عيارها لا تستوب ماتا قدان وعن كوي قدونا فقلاد عيارها سيبا كلن كوينا على تفدحمري كوعدا كبودا عكتا بي اس جي سودو ويسي كوعدا كبودا عكتا مانشستر يونايتد ايان ايغنا قابل بدنا علبو يسو تغشين كوعدا كبودا عكتا مانشستر يونايتد او بدسي كوعدا كبودا عكتا بي اس جي سيفودو سوكليتو داودي وحان ايغدونا عياريان نيمار جونيور امبابي iyo Oliver Rashford iyo Antonio Martial iyo waxyaabihii laga dhahay guud ahaan inta badan koogi doona maanta falaqeynteenu waxay diradda saaran tahay kulankaasi weyn ee dhaxmaray kooxda kubadda cagta United iyo kooxda kubadda cagta PSG ka dhisan dalka France soo galay asxaabay hadii aad ku cusubtahay channelkeena maantay marka uu horto soo booqato fadlan subscribe noo saar soo kale helbaan gambaleel ka soo dhihisho video kasta aan soo dhigno Barcelona haddii aan guda gadno faaqilaada ciyaaraha maanta aan keegayno kulanka weyna ee PSG iyo kooxda kubadda cagta Manchester United waxaan moodaa inta badan in la dhahay kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa si fudud uga badin karta kooxda kubadda cagta Manchester United balse taysmaysan noqon inta badan ciyaarta kubadda cagta lama sadaaninka hore waxa sida uu yiri taabariyo hore kooxda kubadda cagta Gunners Arsene Wenger kaasoo yiri football is a full of surprise inta badan lama sadaalin karo kubadda cagta haddii aanayno line upka rasmiga kooxda kubadda cagta qaybka ku soo galeen kooxda kubadda cagta PSG goolhaye waxa ay ciyaariyaan Navas waxay ku ciyaareen 4-3-3 afarta dambe waa ciyaariyaan Florenzi Diallo Kimpembe iyo Kurzawa saddexda qafka dhac ku jirta waa Andre Herrera Dinolo iyo Guaya saddexda hore qaybta weerarka waa Di Maria Mbappe iyo Neymar waxaan moodaa safkan inuu yahay saf aan caadi ahayn inta badan la dhigi karo koox kasta deehaysato oo ku badin karta balse dhanka United haddii aan eegno goolhayaha waa De Gea marka United aad moodaa inay qaab cusub ay ka soo galeen line-up cusub waxay ku ciyaarayaan 1-3-4-1-2 runtii waa line-up oo la yaab leh De Gea aad moodaa saddexda ugu dambeysay oo haddii aan eegno waa Tuanzebe Lindelof iyo Luke Shaw afarta ku jirto qadka dhaxay waa Wan-Bissaka McTominay Fred iyo Telles soo kaleeto Bruno Fernandes aad moodaa kaligiis inuu tahay lambarka 8 halka afka hore ka ciyaarayaan Antonio Martial iyo Rashford marka kulankan aad moodeen kooxda kubadda cagta Manchester United ay horumareen gool aad u qurux badan u dhalay ciyaarayaan Bruno Fernandes kaasoo ha gool kulaad daqiiqadii 23aad aswalba noqoto qaybtii hore waxay ku soo dhamaatay hal iyo ever ay ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta Manchester United qaybtii labaad markii la isku soo laabtay aad moodaa in kooxda kubadda cagta PSG ay la yimaadeen jadaal aad u wanaagsan balse ciyaaryahan Martial ayaa gool Angola iska dhalay ciyaartu ay sida ku noqotay hal iyo hal balse ugu dambeyntii waxa ciyaarta soo galay Paul Pogba moodinu ciyaartay gibi hamba bedelay daqiiqadii 18aad ayaa gool aad u qurux badan waxa shabaqa ku hubsaday ciyaaryahan Martial kaasoo ka helay baas aad u qurux badan ciyaaryahan Paul Pogba sidana ciyaartu ay ku noqotay 2 gool iyo hal kooxda kubadda cagta United ayaa sida ku badisay 3 dhibcood oo nadiif ah ka soo qaatay dalka France Sport